dowladda federaalka Soomaaliya waxay dejisay habraacyo loo marayo ka hortagga caabuqa coronavirus waxaana habraacyadaas qayb weyn ka ah isbitaalka Martini ee caasimadda Muqdisho oo goor hore loo asteeyay inuu noqdo xarunta gurmadka degdega ah ee laga hagayo xaaladaha ku saabsan cudurka coronavirus. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo xubin ka ah guddiga sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay u xil saartay xakamaynta xaaladaha cudurka COVID-19 ayaa shir jaraa'id ku qabtay isbitaalka Martini waxaana uu ugu horreyn sheegay in cudurkani uu yahay mid jira dunida kalena saameyn ku yeeshay iyadoo bulshada Soomaaliyeed looga baahan yahay in aysan inkirin ama la dhuuman oo qarsan cudurkaasi haddii ay arkaan. wuu jiraa xanuunka corona ha inkirin naftaada ka ilaali dadkana ka ilaali waa xanuun safmar ah oo kugu dhici kara oo igu dhici kara oo bulshada qof walba ku dhici kara waayo fariinta maanta booldiga ah oo aan jecelnahay inaan bulshada la wadaagno waxaan aad iyo aad u dhiirigelinaynaa aysan dadku xanuunka ka baqin ka cararin aysan dareemin in lagu midab takoorayo ama lagu takoorayo oo sida dadka adduunyada uu ku dhacay inta telefishinada soo fariistaan madax iyo maamulo ra'iisul wasaare madaxweynayaal ay dadka ugu sheegayeen oo kale loo qaato dad badan oo xanuunka isaga shakiyay oo waxaa jirta markii aan raadinay oo aan baadi goobnay weynay ama familiyadoodu ay aad ugu dadaaleen inay qariyaan oo ay u arkeen xanuunka wax laga cararo ama ceeb ah ama cambaar ah. Dr. Jalaaluddin waxa uu sidoo kale cadeeyay in aan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo hayn warbixino qeexaya in cudurkaasi uu dalkeena ku faafay balse ay jiraan tuhunno la xiriira cudurkaasi. ilaa ay hadda cadeyn rasmi ah oo inuu dalka gudihiisa ku faafay ama wax afka qalaad lagu yiraahdo community transmission ma hayno laakiin waxaan tuhumeynaa oo aan qabnaa maadaama dadka xanuunka laga helay dad fara badan la kulmeen dadkiina in badan oo kamid ah la raadiyay la socdo xaaladahooda inay dhici karto inuu cudurku ku laba qarxo dalka Soomaaliya sida laga wada warqabo Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada xanuunka laga helay adduunka intiisa badan oo ku faafay waxaan laga helay Soomaaliya oo dhan 5 xaaladood oo mid kamid ah uu bogsooday oo ka reestay xanuunka laba qofoodna ay yihiin ajnabi saddexna ay yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed sidoo kale waxaa xanuunka looga shakiyay ama lagu arkay calaamadaha xanuunka oo baaristooda hadda ay socotaa tiro 17 qofood ah dalka oo dhan. waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqay in COVID-19 uu yahay cudur aan dawo lahayn balse laga bogsoon karo mana aha cudur bulshada lagu takoorayo ama xorriyadda looga qaadayo isagoo intaa ku daray in qof kasta oo dareema calaamadaha cudurkan looga baahan yahay inuusan ka biqin xanuunka isla markaana uu si degdeg ah u tago oo uu la xiriiro goobaha caafimaadka dalka. xanuunka ama cudurka coronavirus ma aha cudur dadku inay lagu takooro ama lagu karantiilayo waa xanuun qofku uu qabi karo la noolaan karo uu ka bogsan karo uuna laga reysto waa sax daawo ma laha laakiin difaaca jirka qofka dadka qaarkii way ka bogsan karaan dadna way u nuglaan karaan oo isbitaal ay u gali karaan oo neef qabatin inay oxygen u baahdaan ayaa dhici karta oo la daaweeyo oo la cilaajiyo. madaxda ugu sarreysa dalka iyo hay'adaha caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya waxay diyaariyeen habraac iyo tilmaamo loogu talagalay ka hortagga coronavirus waxaana kamid ah waxyaalaha ay dowladda Soomaaliyeed diyaarisay xaruntan oo ah xarunta karantiilka sida aad u jeedaan goobtan waa goobta loogu talagalay in lagu karantiilo dadka looga shakisan yahay in uu haleelay COVID-19 ama laga helo calaamado u dhigma calaamadaha COVID-19. wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale dhammaan hay'adaha caafimaadka dalku waxay shacabka Soomaaliyeed ku boorinayaan kuna adkeynayaan in ay ogaadaan in coronavirus uu yahay cudur khatar ah oo ka jira dunida isla markaana loo baahan yahay in taxaddar joogto ah laga yeesho dadkuna ay ku sugnaadaan guryahooda isu imaatinka iyo isdhexgalkana la yareeyo. sababaha arrimahaas oo dhan loo yeelaya ayaa waxay tahay kor u qaadista badqabka caafimaadka bulshada Soomaaliyeed. Zakariya Khaliif Faarax, warbaahinta qaranka, Muqdisho.